بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى استمرارا للمجهود السعودي الكريم في توزيع السلال الرمضانية على الفئات الأشد احتياجا بجمهورية صوماليلاند خصوصا إقليم مرودجيح. يختتم اليوم برنامج توزيع 10,000 سلة 10,300 سلة رمضانية مكتملة على الفئات الأشد احتياجا بإقليم مرودجيح التابع لصوماليلاند. الحمد لله رب العالمين. نحن الآن في مديرية دار السلام. هذه المديرية مكونة من أقاليم أو بالأصح مكونة من قرى وقضاءات كثيرة. اليوم يتم توزيع 500 سلة غذائية. نحن في موقع يتم توزيع فيه 250 سلة غذائية. الحمد لله رب العالمين. اختتام البرنامج الخيري السعودي بدعم الفئات الأشد احتياجا بجمهورية صوماليلاند. بذلك نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الثاقبة حفظه الله ورعاه على المجهودات الخيرية التي تكفل سموه هو الديوان الملكي السعودي بالمكرمة الغالية على الفئات الأشد احتياجا. طبعا المستفيدون فاق 70,000 والسلة الغذائية 10,300 سلة مكتملة. الناس لم يروا مثلها أبدا من ناحية جودة المواد وكثرة المواد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. hay-adda udeergarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka waxay maanta ku khatimaysaa barnaamijkii weynaa ee ahaa u gargaaridda dadka danyarta ahaa gaar ahaan gobolka Maroodijeex. waxaan goobjoog u nahay degmada Daar es Salaam. الحمد لله رب العالمين. dadweynaha degmada waxaan xaggan ka cadeynayaa codsigan wuxuu ka yimid gudoomiyaha degmada oo runta inta ugu badan u dadaala haddii tahay qaybta caafimaadka, qaybta waxbarashada, biyaha oo mar walba heegan waa inuu dadkiisa caawiyo. labadan goobood isaga asteeyay codsi buu u keenay gudoomiyaha hay-adda mudane Faysal Ali Sheekh si dadku dee si fiican u soomaan. الحمد لله رب العالمين. waana khatimaad xaggan waxaan ka cadeynayaa dadkii lagu talagalay in la siiyo ayaa lagu wareejiyay raashinka. goobjoog baanu ka nahay si habsamiya oo nidaama oo soo dhaweynay haddii tahay Cabdiraxmaan Qodax oo mas'uulka ah deegaankan dadkii dhammaan soo dhaweyn iyo kala dambeyn. booliskuna kadalik mahadnaq gaarana waxaan u mahadnaqayaa isduwa gobolka Maroodijeex mudane Yuusuf Daawud. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta ay taariikhdu tahay 20 bishii shanaad halkan aan joognaa maanta waxa weeyaan daalinta dhexe oo ka tirsan Daar es Salaam oo ah gobolka Maroodijeex. taasoo aanu keenay raashin dhan 500 oo qoys raashinkood oo isugu jira timir, bariis, sokor, daqiiq, saliid iyo baamiir iyo timir. 7 shay weeyaan. 7 shay baan degmada Daar es Salaam keenay ayaanu keenay haddii ay keentay dowladda Sacuudi Arabiya soo marisay hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka qaranka oo xilbiyadaha leeyihiin. aad iyo aad baan dowladda Sacuudiga ayaanu ugu mahadnaqaynaa hawsha raashinka ay keeneen ee ay soo mariyeen hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka qaranka. raashinkaas oo ka koobnaa 500 oo qoys raashinkood. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda Sacuudiga iyadoo imikana keentay mar horena keentay mar dambana aanu ka filinay inay keento iyadoo had iyo jeer laga dawarhayo dadka danyarta dadka Somaliland danyarta jamhuuriyadda Somaliland ay ka warhayaan. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda Sacuudiga. mashkuur عليه بألف شكر جزيلا. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله إلهي بقى مهد إسكاله إله سبحانه وتعالى إنه قدرين معدن بلاران كتمي الدولة السعودية إنه أصاب بيغضي وقدك محاكو هذا أبارها كسود وسنة إلهي رحمات وشبي ربما أنت كنت شرين وقت كان مناسب كان هو بيغضا خير كان أي سمالا نقول بيغضو وحكرانو مهدنقين هيدا وديارقروغا iyo kaydka raashinka qaranka ee Somaliland oo iyaduna deeqdan sidii loogu talagalay agaasintay. waxa kale oo mahadnaqayna gudoomiyaha degmada Daar es Salaam oo ruuxaantii isaguna mutadalabka iyo dalabka iyo baahida deegaanka markuu wuxuu gaal noqday dalabka fuliyay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin macadaasi iyo deeqdan soo gaarsiisay waan idinka gudoonay. waxaana insha Allah taala ilaahay dartii iyo ilaahay u ballan qaadayna dadkii loogu talagalay ee u jilicsanaa inaynu gaarsiin doono iyo qoysaska ugu sii liitay ee ugu sii danyarsan ee ugu jilicsan ee deegaankan ku nool
insha allahu tacaala nimcadaa waynu ka guddoonnay aad baad u mahadsantihiin deegaanku waa deegaankiinnii intii maxaan ku dhahdaa ee xukuumaddii cusub dhalatay beryahaaba ishaanu dabayno waxaan lahayn talo miyaydii ilowday xukuumaddii cusbeyd laakiin maantaba haddaanu idahayno aad baad u mahadsantihiin waxaan leenahay jasaaka allahu khayran mar labaad iyo mar saddexaadba inaad timaadaan baanu doonaynaa waa deegaan wixii loo keenaba si nabdoon oo ceybka saliina u qaybsada kusoo dhiirado mar walba kaana waxaad u haweydeen insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin ugu horreyn mahadoo dhan ilaahay baa iskale alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaaha nimcada raxmad roobka inoo shubay waynu ugu mahadnaqaynaa mar kasta sidoo kale waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay hawshan ayn maanta u joogno ah raashin loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada daarusalaam gaar ahaan laba goobood oo ka mid ah oo ah ilinta dhexe iyo ballayga cas oo lasoo gaarsiiyey deeq ka kooban 7 nooc oo raashina hadday tahay sonkortii bariiskii daqiiqdii timir baasto binis runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa weeye hay-adda waxa weeye boqor salmaan deeqda raashinka ayna soo gaarsiisay sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keydka raashinka qaranka oo iyaduna ah waxa weeye mashruucan cidda lasoo dhex mariyey ee runtii qaranka u qaabilsan inay waxa weeye u qaybiso wixii deeqa ee waxa weeye inagu aynu leenahay iyo wixii cid kale inooga yimaada aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan halkan ka caddaynaynaa inaanu ku wareejinay labada goobood marka hore baanu astaynay waxa weeye in la siiyo waxa weeye raashinka oo ah ballayga cas iyo ilinta dhexe maamulkoodii deegaanka madaxdii deegaanka hertulayaashii inaanu ku wareejinay mid walba 250 qoys oo loogu talagalay inay dadka danyarta ah waxa weeye iyaguna ay gaarsiiyaan runtii waxaan mar labaad u mahadnaqayaa istuuyaha gobolka yuusuf oo runtii ah waxa weeye mas-uuliyiinta sidaadka waxa weeye xidhiidhka nolole mar kasta oo waxa weeye waqtiyada roobabku daayaan iyo waqtiyada abaarahaba runtii deegaanka aad uga warhaya isagana aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan waxa weeye uu noola shaqeeyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga faysal cali sheekh oo runtii isaguna ah mas-uul waxa weeye xilkii loo igmaday waxa weeye si hufan u gutay oo mar kasta waxa weeye dadkiisa wixii awoodda dowladdu ay tahay waxa weeye soo gaarsiiya sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo waxa weeye isaguna mar walba ka shaqeeya sidii waxa weeye dadkiisa waxa weeye horumarkooda looga shaqayn lahaa dhammaan tiin waa mahadsantiin